Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ku soo dhowaada kanaalkeena Warsada Media. Ra'iisul Wasaaraha talada haya ee dalka Itoobiya ayaa asalkiisii ku yimid kacdoon isdaba joog ah oo ay qowmiyadda Oromada talada kaga tuureen Hayle Maryam Dassaaleenkii iscasilay kadib markii uu xallin waayay isu soo baxyo waaweyn oo qabsaday guud ahaan dalka Itoobiya. Qowmiyaddan laga tirada badan yahay ee Oromada oo tabanaysa inay gumaad, tacadiyo iyo barakicin u geysteen xukuumadihii talada isku beddelay ee ka soo kala jeeday Amxaarada iyo Tigreega. Sida ay sheegeen, waxaa muddo badan laga goodoomiyey dhaqaalaha, waxbarashada iyo xilalka muhiimka ah ee dalka, iyadoo ay u dheereey tacdiyo loo geysto shacabka birimigeydada ah. Waxaanay diiqad iyo guux gelisay dhalinyarada iyo waxgaradka qowmiyaddan ugu tirada badan ee dalka Itoobiya. Ugu dambayna, banaanbaxyo waaweyn oo isdaba jooga oo ay ka sameeyeen dalka waxay ku guuleysteen inay qabsadaan kursiga ugu sarreeya ee dalka markii ugu horreysay abid taariikhda, oo uu ku guuleystay Abiy Ahmed ka haatan talada haya. Waxayse lama filaan iyo loo qaadan waa ay ku noqotay kuwii talada isku soo bedeli jiray oo aanan marnaba filayn inay Oromada qaban karaan xilka ugu sarreeya ee dalka. Waxayna kala hor yimaadeen mucaaradad weyn oo ay isku dayeen inay marar badan khaarajiyaan ra'iisul wasaaraha dalka. Abiy Ahmed ayaa isbeddello waaweyn ku sameeyey dastuurka, si la mid ahna ku dhawaaqay xisbigiisa cusub ee barwaaqo, kana dhigtay garab weyn qowmiyadaha Soomaalida, Canfarta iyo shucuubta koonfureed oo horay si la mid ah Oromada kuraasta macnaha leh looga ilaalin jiray. Waxaana halkaasi ka soo baxday Itoobiyadan cusub oo ay hurmuudka u yihiin qowmiyadihii ka caaganaa meel haybad sarreysa. Ra'iisul wasaarahan ayaana shaashadaha kaga soo muuqday markiisii hore siyaasad furfuran, dimuqraadiyad iyo dabacsanaan, waxaana halhays u ahaa kelmadaha inidhamar iyo bafaqir oo labaduba ah kelmado muujinaya kalgacayl iyo isjacayl. Waxaanu nabadeeyey dalkiisa iyo Eritrea oo ay colaad fac dheer ka dhexaysay. Sidoo kalena wuxuu isu taagay nabadeynta koonfurta Suudaan, wuxuuna caalamka ka gaday inuu yahay shakhsi jecel nabadda. Kolkaasuu uu ku guuleystay biladda Nobel Peace Prize. The Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. Dowladda federaalka ayaa u dirtay baaqiyo kala duwan oo ay ku xallinayso khilaafka kala dhexeeya. Ha yeeshee waxaa dhagaha ka furaystay maamulka TPLF oo weeraray saldhig ciidan oo ku yaala xuduudka u dhexeeya kililka Amxaarada iyo kan Tigreega. Waxaana halkaas ay ku laayeen ciidan badan, halka ay la wareegeen gaadiid dagaal iyo hub culus, waxayna qafaasheen saraakiishii ciidanka hogaaminaysay. The federal government had every right to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights violation. Waana kolka goortuu Abiyigii lagu yaqaanay nabadda iyo dimuqraadiyadda uu isu beddelay taliye ciidan iyo hogaamiye dagaal oo uu weerar ku qaaday kililkii Tigreega. Dagaal culus oo qaatay isbuucyo ayaa lagu soo afjuray maamulkii awoodda badnaa ee muddada dheer saameynta siyaasadeed ku lahaa gudaha Itoobiya iyo Geeska Afrika. Dowladda federaalka ayaa guud ahaanba gacanta ku dhigtay kililka Tigray, waxaana buuraha deegaankaasi galay madaxweyne Debretsion Gebremichael iyo xulafadiisii oo ay ugaarsanayaan ciidanka dowladda federaalka, halka saraakiil sare laga soo qabtay, kuwa kalena weli lagu daba joogo. Waxaanse la dhayalsan karin dagaalka jabhadda TPLF oo horay uga soo dagaalantay duurkaasi. Ha yeeshee dagaalkani wuxuu dhaawac weyn ku noqday xisbigan cusub oo ay bahwadaagta ku yihiin qowmiyadihii laga awoodda badnaa oo isu diyaarinayay inay majaraha siyaasadda u hayaan dalka Itoobiya muddooyinkan cusub. Maalmihii la soo dhaafay, waxaa ila wareedyo ku dhow laamaha dowladda ay sheegeen in ra'iisul wasaare Abiy la sumeeyey amaba la dhaawacay oo ay xaaladiisa caafimaad liidata, loona qaaday cusbitaal ku yaala dalka Talyaaniga. Ha yeeshee khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka iyo gaar ahaan midda Itoobiya ayaa qaba inay noqon karto bilowga dagaal ahli ah oo ay gasho guud ahaan dalka Itoobiya.